waxaa ii caddaatay inaan magacaabo xasan cali khayre waan ka aqbalay hadal badani haan ma buuxiyo iga qabta oo iska qabta markan guusha ra'iisul wasaare xasan cali khayre kun jeer baan u mahad celinayaa guulaha lama taabtaanka ah dowladda Soomaaliyana waxaan leeyahay alla ka sukow mudnaanta idinka ayaa iskale maanta kala doorkiina ma qiyaanayo haddaba wafdi ballaaran oo hogaaminayo ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo ka qayb galayay shir ka dhacay magaalada Addis Ababa isla markaana ay ku kulmayeen madaxda ururka midowga Afrika ayuu ra'iisul wasaaruhu isagoo wata xubnaha ra'iisul wasaaraha wafdiga weeyaane 8 ruux ayuu ka soo laabtay isagoo 130 qof asagoo ah bal fiiri wuxuu ka qayb galay shirka isagoo 8 qof ah waa 8 qof oo waliba ah wafdigii uu hogaaminayay wuxuu soo noqday ra'iisul wasaaraha asagoo 130 qof ah maxay taa sababta ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa soo badbaadiyay runtiina ku tilaabsaday guushii ugu horeysay inuu maxaabiis ku xiran magaalada Addis Ababa xarunta wadanka Ethiopia uu soo daayo walibana uu codsado isla markaana laga ogolaaday in dhammaanba maxaabiista lagu soo wareejiyo gacanta dowladda Soomaaliya ma dhicin tan oo kale dhowr iyo 30 qof ayuu soo badbaadiyay ra'iisul wasaaruhu dhammaantoodna waxay ahaayeen qaar ku xukunaa xukumo kala duwan sida inuu ahaa muqallas qaar baa lagu xukumay oo waxa lagu eedeeyay in Ethiopia gudaheeda dadka ka tahriibi jireen dad baa lagu eedeeyay sidoo kale in ay ahaayeen kuwa qaswadayaal ah oo aan inta badan cadeyn loo hayn ra'iisul wasaaruhu soo badbaadiyay waxa ku jiray wariyo weyn boqorka bartamaha oo muddo dheer aynu la ilmeeynay oo aynu u sacabatumaynay in aynu madax kastaba aanu rahno bal waynu idin sacabatumaynay soo badbaadiya boqorka bartamaha lama helin wadani u babacdiga boqorka bartamaha iyo dhowr iyo 30 qofood inuu xabsiga ka soo daayo war Soomaaliya 8 qof ayuu ku baxay ra'iisul wasaaruhu wafdigiisu 8 qofood ayay ka koobnaayeen wuxuuna ku guuleystay inuu keeno isagoo dhowr 130 iyo dhowr qof ah gacanta ayuu wadaa Muqdisho iyo guushii ayuu sidoo ku soo hooyay intii uu ku sugnaa ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya xasan cali khayre gudaha magaalada Addis Ababa ayaa wuxuu sidoo kale halka kula kulmay jasiiradii yarayd ee dhibka badnayd ee xabsigii qurmay oo ku yiilay Shisalis ayuu halkaas kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka jasiiradaasi madaxweyne ku-xigeenku wuxuu hordhigay in uu ra'iisul wasaaruhu u baahan yahay dhalinyaradii maxaabiista ku ahayd jasiiradaasi dhammaanna wuxuu hordhigay in haddii la maxkamadeynayo qalad ay dhalinyaradaasi ay galeen lagu soo wareejiyo dowladda Soomaaliya ma aaminaysaa in dhalinyaradaasi dhammaantoodba ay wada noqdeen dambilaawayaal waxay xirnaayeen muddo dhowr sano ah mana jirin dowlad oo babac dhigta madaxweynaanan u dhaqaaqin gudoomiye baarlamaan ayaanan aadin xitaa maxamed cabdilaahi farmaajo weligii Soomaaliya uusan qaadin ra'iisul wasaaruhu ayaa shir kaliya wuxuu ku qabtay soo badbaadinta 130 qof ka hadlida ra'iisul wasaaruhu kala hadlay madaxweyne ku-xigeenka Shisalis arinta ku aadan jasiiradan kooban ee ciriiriga badan oo ay Soomaalidu ku dacdaraysnayd wuxuuna madaxweyne ku-xigeenka jasiiradaasi oo ra'iisul wasaaruhu u sheegay in dhammaan dadkaasi aynan hadda jirin cadeyn rasmi oo lagu hayo ay ku aadan dambigan ay ku mutaysteen xabsiga intaas oo sano qaatay waxa loo balan qaaday oo la sheegay in la soo deynayo sida ugu dhaqsiyaha badan ra'iisul wasaaruhu taama ogolaan wuxuu durbadiiba isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa buuxiyay fayl ku aadan in jasiiradaasi dhalinyarada ku xiran lagu soo wareejiyo muddo yar gudahood wuxuu yiri 130 qof ee ma anfacda inaan Muqdisho kula laabto guushooda waxaan doonayaa inaan sidoo kale ku darsado jasiiradaasi dhalinyarada ku xiran ra'iisul wasaaruhu markuu jasiirada kala hadlayay madaxweyne ku-xigeenka wuxuu u sheegay inuusan marnaba ogolaanayn hadda fiiri dowlado badan baa na soo maray xukuumado kala duwan ayaa na soo maray dad fara badan ayaa inta badan arintan doorka wadaninimo sheegan jiray bal arag ra'iisul wasaarahan wuxuu sameeyay in maxaabiistii Shisalis ku xirnayd ayuu codsaday muddo kooban gudahood in gacantiisa lagu soo wareejiyo wuuna qaatay 130 meel iga dhig Addis Ababa waxay ku xirnaayeen intaas oo sano waxa kamid ahaa boqorka bartamaha oo aan kala hadlanay dowladihii hore sida dowladii ugu dambeysay ee xasan sheekh maxamuud oo aan u codsanay bahda media hadaanu nahay in wariyahaasi la soo badbaadiyo muxuu ku xirnaa wariyaha mataqaana
wuxuu ku xirnaa shaki maqaayad qarax ka dhacay ama goob lagu qaraxu ka dhacay ayuu dhawaa wuxuu ku xirnaa intaasoo sano ayuu qaatay sharci aanan inta badan dunidaba ka dhaadhici waayey boqolka bartamaha isaga iyo dhowr iyo 30 qofood waa la soo badbaadiyey ra'iisul wasaaruhuna isagoo 8 qof ayuu 100 iyo dhowr iyo 30 qofood ku soo laabtay magaalada Muqdisho kama usan harin inta ha u malaynin guusha aan ka hadlayo hal guul waligay ma sheegin إلا نوم والبابا هل قول أيو سوقاتا قوشا سالقو حيسين جري رئيس الوزراء حسن علي قيري قوشي سما أهميت كلية هادو شي شليسكا حضي أيو سيدو كالوحو يروحان دونيا دالين يردو كوحرني دالك إنديا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دالين يردو كوحرني حسن علي قيري دالك إنديا أيو عطصدي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وحو يري dhalinyaradaasi ku xiran dalka India ee xabsi daa'in iyo dil toogsha lagu xukumay ayaan doonayaa inaan wax ka dhageysto ra'iisul wasaare Barfiiri Xasan Cali Khayre wuxuu yiri dhalinyaradaasi India ayaan doonayaa inaan badbaadiyo maxaa soo baxay mataqaana war Soomaaliya runta la isku sheego guusha aynu kor u qaadno guul darradu ma aha mid inta badan dadka saameyn ku yeelan karaysa laakiin guusha saameyn bay yeelanaysaa profilkeena galaysa markii uu libaaxnimadii uu la soo baxay Xasan Cali Khayre ku aadan dalka India waxa soo baxay rag waaweyn oo dawladda ka tirsan oo qaarkood saraakiil qaarkood wasiir ah qaarkood safiir ah ayuu ra'iisul wasaaruhu waxa uu soo cadeeyay inay ka dambeeyaan dhalinyaradaasi dilka toogasha qaarkii warqadaha ka saxiixay ayaa kamid ah warqadii baa laga saxiixay waxa lagu yiri dhalinyarada dalka India ku xiran dambigoodii iyo howlahoodii oo dhanba waxa lagu saleeyay inay ka dambeeyaan dad ka tirsan dawladda Soomaaliya aaway guushi aynu ka codsanaynay aaway guushi aynu codsanaynay haday timid aaway farxadii Soomaaliya meel walba joogtaan dhigiina fura anigu siyaasi hal door keenay waligay ma amaanin siyaasi hal jeer gool keenay waligay bulshada uma sheegin waayo nin walbaba hal gool uu keeni karaa nin baa 7 bilood ku socon baxay Barfiiri 7 bilood ayuu mushaar dhiibay madaxweynaha Soomaaliya ayuu ku noqday maxaa diidaya hadduu 7 bilood nin dawladda mushaar siiya ayaa madaxweynihii Soomaaliya noqday ninkan 3 gool oo kala duwan ayuu soo badbaadiyay isagoo 8 qof ayuu Addis Ababa tagay isagoo 130 samti ah ayuu ka soo laabtay magaalada Addis Ababa hadda 7 bilood wadani ku noqotay oo madaxweynihii Soomaaliya ku noqotay maxaa diidaya in ra'iisul wasaare galifay inta soo gool loo durbaantumo in la soo tabiyo xumaatadiisa qura maxaa keenay ko iga qabo waxa keenay wuxuu ka soo jeedaa gobolka Banaadir waa nin dega Banaadir waayo ninka Banaadir dega guushiisa lama qabtaba wax laga ma soo qabto ma aha nin waxtar leh waayo isagu waxa uu ka soo jeedaa waxa uuna ka soo jeedaa dadka gobolka Banaadir oo guushooda aanan arag waxay u sacabatumayaan 7 bil nin mushaarka dawladda Soomaaliya qaasatan militariga siiyay 7 bil oo kaliya wadani buu ku noqday dadkiiba amaanay dadkiiba kor u qaaday aawa ninkan doorkiisii aaway Xasan Cali Khayre doorkiisii aaway waxtarkii Xasan Cali Khayre miyuu ka mudan yahay maanta inaad tiraado nin walba ayaa dhihi kara war waa 8 qof wuxuu soo laabtay 130 samti qof isagoo wuxuu soo badbaadiyay dhalinyaro ku xiran Addis Ababa wuxuu soo badbaadiyay jasiiradda Seychelles oo aad u ooynayseen war ilaan ooyintiinu beenbay ahayd aaway dadkii jasiiradda u ooynayay aaway dadkii suxufiyiintii iyo aqoon-yahanadii iyo ganacsatadii isugu jiray aaway culimadii ilmeenaysay wallaahi maanta waxaan idin cadeynaya nin dambe oo Soomaalinimo u ooynay hadaad aragto waa stupid way waa in isaga qudhiisaba wax laga qabtaa Soomaalinimo ma jirto Soomaalinimadii inta badan waxay noqotay iska gad qofka kale bal fiiri maanta ra'iisul wasaaruhu wuxuu gaaray heerka ah soo badbaadintii maxaabiistii Addis Ababa jasiiradda Seychelles wuxuu soo gaaray heer dhalintii India ku xirnayd oo aad banaanbaxa u dhigayseen alla maxaa qurux idinka muuqda markaad been sheegaysaan maxaa qurux idinka muuqda Soomaaliya markaad ilmeenaysaan quruxda idinka muuqato ma malaysa kartaan haddaad ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre doorkiisa arki weyso ilaah baan ku dhaarto wadaninimada dambe inaysan jirin Khayre dhageyso wuxuu soo hooyay 132 qof oo Addis Ababa ku xirnaa wuxuu soo hooyay jasiiradda Seychelles dhalinyaradii ilmeynaysa dhamaantood wax kale ma usan ku mutaysan bari waad arki doontaan mooshin baa soo socda
waxa mooshinka ku ridaya ma taqaanaan waxa ku ridaya ninka wiilkiisa uu ku xirnaa Addis Ababa waxa ku ridaya ninka oo wiilkiisa ku xirnaa jasiiradda Seychelles waxa ku xilaya oo mooshinkaasi ku wada dad ehelkoodii la badbaadiyay gacanta la soo qabtay dadka ehelkoodii gacanta la soo qabtay ayaa ku ridaya aaway marka Soomaalinimadii war Soomaaliya meel walba dunida ka joogtaan hal maada iga qor ogaada maado guusha oo qof kasta uu gaaro haddaad ku faraxdo Soomaali guul bay gaaraysaa dhammaantiinba waxaan idin leeyahay hal codsi ayaa muhiimadu ay tahay waan ku celinayaa hadalka dhageyso ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu gaaray Addis Ababa isagoo 8 qof wafdigiisu uu yahay war waa 8 qof fiiri markii uu gaaray magaalada Addis Ababa waxa la socday wasiirka arrimaha dibadda saaxiibka Yusuf Garaada la socday rag badan baa la socday markii la tagay halkaasi wuxuu soo laabtay isagoo 130 qofood ah 130 qofood isagoo ah ayuu soo laabtay cid u hambalyeynayso bal fiiri cid u hambalyeynayso ma jirto waxa lagu liidayo wax kala ma wadani ma noqda qofka baraadir ka soo jeeda sheegin guul ma noqda nin koonfurta Soomaaliya ka soo jeeda door ma yeelan karo nin yar oo laciifa hadduu hal gool gaaro Soomaalidu dhan gacmo is qabsanayaan waxa la leeyahay wadanigi waxa la leeyahay waxtarki waxa la leeyahay meesagoo kala jira meesagoo kala inta ka dhacday hadduu maanta ra'iisul wasaaruhu mudaan ku heli waayo oo ay dhacdo in ra'iisul wasaaruhu oo guushaasi ku kasbado jagadiisa inuu ku waayo Soomaaliyeey meel walba aad joogtaan doorkiina waa ka arka